soo dhawaada channelkan Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa dhinaca Bitcoin iyo cryptocurrency maalin kasta xaggu marayo. Hada channelka cusub tahay like subscribe taabo si qofka loo arki karo videogan uu faa'iideysan karo. Aad ba mahadsantihiin. Kale maanta waxaan aragnaa inuu Bitcoin hadana sayra kacay. Bitcoin iyo cryptocurrency kalaba way dhaceen. Waxa dhaceen wax kala maaha. Waxa dhaceen wixii ka dhacay China laga baqiyay Taiwan ku duusho taas waa mid Ruushka iyo Ukraine wala dagaalamaya wax kasto qaali garoobay dadka la baa ku adkaaday waxa soo dhan waa kamid waxa ay u dhacayo oo dadka ugu adkaatay si u iibsadeen laakiin saa aragtaan maanta wada green oo saaran noolaaya hadana waxa laga fikiray maanta ma bari maaha waa saan sheegay waa long term investment waxan waa 3 years 5 years 10 years marka inta macaasha salagada istiraadin maalin qolad ka taajiraysa waxa ma helaysid waa ta maanta wanaga wadeegnay madana like subscribe taabo wada channelka cusub tahay oo maanta koobaad tahay si qof kale insha Allah ugu faa'iideysan karo waxaan galeynaa website gareynaa hadana waan eegnaa maanta xagga hawsha marayso halkan Bitcoin hits a new high baa lagu leeyahay on US payroll G7 Russia and Jacob marka Ingiriiska dadka America jooga iyo G7 Canada dalkaas oo dhanba isku yimi marka waxa laga baqayaa wax kale maaha waxa laga baqayaa Ruushka laga baqayaa Ruushka soo dhaqmayo dagaal ku jiro waa mid talabaadna waxa weeye gas prices ki baa qaali garoobay marka Europe wax kasta ku qaali garooday taasna waxa keenaysa Bitcoin inuu dhaco jabo because dadka lacag ma hayaan ay dib u galiyaan marka waxa soo dhan waxa ka haysta effect badan dhinaca Bitcoin-ka oo hadda wax kasta qaali garooban dadkii lacag ma haystaan oo ku iibsadaan cryptocurrency oo lacag ay siraadaan maalgeliyo lacag meel dhigo waxaaga meel gasho oo mustaqbalka ka fikir dib ku lacagta ugu baahan inay cunto amba life ku inay galiyaan maaragtay marka laakiin maanta waxa lagu leeyahay waxay sameeyeen plan bay sameeyeen G7 toddoba dal isla socda adduunka xukuma oo Ingiriiska American kamid iyo Japan kamid tahay the further boost came from a news that the G7 had agreed to implement a price cap on Russia oil, with European Union also planning to target the country gas imports. While the S&P 500 and Nasdaq Composite Index both added down after so trading, the US dollar currently fell in September, looking to dive below 100 in a time of waiting. dollarka duu jabano dhawa wax fiican dadka wax iibsan karaan alaabta liibsanay baa jabaysa hadii kale dollarka uu kaco alaabta waa qaali garoobayso dadkii ku adkaanaysa si wax iibsadaan marka waxa soo waa wax important oo dhinaca economiga laga akhriyo website-kan waa website fiican markasta isticmaalo waan ku soo qoriyo meesha saago akhrisataan oo uga daawataan marka dawata like subscribe taabta channelka cusubtiin حاجة معك وثالثا نحكي cryptocurrency وحاجة بيتكوين كمريا مالي كستا مركا وات حلولي هدنا أنا قرأ in a tweet on the day popular trading account Dan Crypto Traders showed that a low liquidity error remained overhead likely not providing much resistance white area quite in terms of recent value profile part of commentary أنا ما ركت مركا حلولي waxay ka baqayaan inuu dhaco hadana Bitcoin laakiin waxa la white area looked is the vulnerable should move through the area with the is need to be xagan waxa lagu jeedaa wuxuu leeyahay waxa ka baqayaan inuu Bitcoin dhaco laakiin waxaan isleeyahay buu yiri nikan Twitter ka haysta waxaan ka shaqeeyaa ilaalada Dean Crypto Traders wuxuu ku leeyahay waxaan filayaa dhacdo laakiin waxaan isleeyahay resistance bana haystanaa meeshii wan joomaad kaan because dadka badan haysta Bitcoin ka aad u badan This led YouTube opted meanwhile for the trade expect to analyze meanwhile since there was a reason to stay push price action. أنا bullish لاستاجا bullish حويه قفكم مركوين كفكريو لنا مستقبلك كواتاس كنا قلنا chat كان دمو ذيقنا هدنا إن سافلي أنا أصلي هذا بيتكوين كنا قلنا بيتكوين وحصلي أنا قويني مكان إنتنو تشوق دونا هذا ويران لبضو بيجاس عصعدا markuu Ethereum merge ka yimaado baasle uu kacaya marka uu kacaya isla 20,000 bu gaariya ugu yaraan imka 17,000 oo meelaha waa 18,000 oo dollar dhow marka wuxuu baahay waxaan samar baahay waqti u baahayay maalin laba kuma kariyo
weygii hore haddaan eegno oo taa aan eegno 16 buu ahaa, dib buu kacay, taasuu garay 18 buu ku dhawaaday. Marka waxaan wuxuu u baahan yahay samar badan buu u baahan yahay, waqti badan buu u baahan yahay. Laakiin saan filaya anigu iminka samarkan samar fiican maaha, uu yara dhacay, laakiin markii gaadho bisha October kadib baan filaya inuu kacayo si qeyr caadi u kacayo. Sanadkan wuxuu ku dhamaynaya ugu yaraan 40,000 35,000 meelaha baan buu ku dhamaynaya waan isleeyahay anigu, oo kuwa kale wada raaci doonaan. Taas haddana waa maalin kale waan wada eegnay maantana. Like subscribe taabta si looga faa'iideysan karo, share gareeya. Waa taas waa na beri haddana maalin kasta video cusub aan soo duubaya.